بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الكريم ميل البواد جوجتان كسو دوادا وركة تلفزيون كصومالي نيوز ودين كجيمان يا استوديو هدحي مقالة مقدشو قضبضات كودا ودونتان وررك يجا وحاكمدا مدحوينها سومالي لان أحمد سيلايو أي حرونتا مدحتويدا سومالي لان كوقا بليه وفدي كسعودة الدولة ودنك إيتوبيا يجا وكودا هادلي الدجالك أيداد بدن كل إنتين وكدا عيديجان كجاشامو baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ee dalka. Xildhibaan Saleeman Cali Koore oo ka hadlay colaadda ka taagan deegaanka Dharkan Geeyo oo ka tirsan gobolka Sool isagoo socdaal ku tagay qaybo kamid ah gobolkaasi. Saraakiisha AMISOM ayaa maanta Muqdisho ku qabtay kulan wacyigelin ah oo ay ka qaybgalayeen haweenka Soomaaliyeed waxaana kulankaasi looga hadlayay sida haweenka Soomaaliyeed ay ugu qaybgali karayaan doorashada 2016 ka dhacaysa Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo diyaar garooba goordhow insha Allah.